ama maalinta labaad dabcasar waynu ognahay buuqbuuq iyo maqaaxida wuxuu ka sameeyey waynu ogeyn maqaaxida kabacdina waxaynu ogeyn in habeenkii isagoo meesha ka qaylinaya habeenkii loogu soo galay meeshii hoteelkii laga gaxgaxeeyey waxaynu ognahayna shalayna in la sii daayey marka wuxuu xidhnaa 12 saacadood ugu badnaan waa hadday ugu badato 12 saacadood buu xidhnaa ama maalin biyo ama habeen baa lagala baxayay habeenkii waaga ugu bariyay maalintiina gabalka ugu dhacay habeennimadkeedina waa la soo daayay taas waxay muujinaysaa fashil run hadii laga hadlayo way wax xaqiiq waxa weeye waa fashilaad sababtoo ah dawladdan وعليكم السلام سو dhawaabtay dawladdan oo ma aragtay qof shakhsiya xiratay oo si fudud oo waliba dhibaato badan sheegatay oo uu hadlay madax maxal dhaha ciidanka ka haystay oo dawladda siyaasiyiinta ka hadashay oo arrin yani ay ku adkeysanayaan ninkaas inuu nin dambiile ay yahay maxkamadna loo keeni doono yani ninkaan la karbaashi doono ninkaasna wax ciqaab murto hadduu cadaan yahay iyo madow yahay lagu fulin doono waxaan ogaanay in la sii daayay ninkii هلا سيدا ينيك وحين لوجنا ساعة صوص أما هذا مريكان بصاعة قلقتي أما هذا ساعة صوص على وسوق اللي مريكان تاس هذا على سو هرجيسة فليو إيربوت كيف فليو بهاشي فليو هرجيسة نحتوجة أيو برتي كرسي قبته عادي أفلاجات الدولة دي أو لا هي ماشين دولة كم تشرته وحاكت الجانكس يعني وحكومة عابي قرو مريكان يكتشر أو بالكي أو dadka madaxa duubto oo iska qargagixisa oo baaba abu ku tilmaamay dawladii yani meesha fashilka ka jira uu lahay waana ku fashilantay dadkana waa la afduubayaa iyo shacabkuna way wanaagsan yihiin shacab fiican ba meesha degan laakiin dadka angiisa ayay u xiran tahay oo meeshii waxay ka dhigan qaaxi saas oo hadalka u dhiga arrintaas marka horta waa fashil weyn run hadii laga hadlayo waa arrin aad fashil weyn oo Soomaaliland runtii ay muujisay Soomaaliland ka dhacday waana ceeb ayay nagu tahay in intii qof la xiro haddana si fudud lagu soo daayo gorgortan laga galay gorgortan la galo cadaaladda lala waxaysto dawladaha weyn kula hadlaan adduunka wax soo bandhigto yani isgabgableysiiso laakiin soo daa Mareykan baa tiriya hadii malaa'ig soo xag juglayso ma soo daayeen kale aniga qadiyad ahaan Muawiya ahaan haddaan qof xiro si fudud kuma soo daayeen reality-gan ka hadlaya laakiin marka hore aan si fudud ku xireen Somaliland inay si fudud wax ku xidho si fududna ku soo deyso arintaas arrin wanaagsan ma si fudud ha ku xidheen si adagna ku soo daayeen waa iga talo waaya adduunka si kasta wax u dhacaan waa la sadkeeya ma maqashan waa dad dhimanaysa dheerka la iska duwaa yani dheerka inaad iska duuday ahayd oo ku adkaysato soo deemayno ninkan dawladu inay Mareykan buu ninkan u xidhnaa nin Mareykan ah reality marka la cad Soomaali ma soo deey Mareykan cagjugle kaga timid iyo Mareykan hadal kaga yimid ay Soomaaliland ku soo deysay Somaliland Soomaali ahaan kuma siideyn Soomaalina waaba ku faanay siyaad bar awood lebaanu ka siiday weyn ninkan Mareykan baa hortiso ninkan Mareykan ah nin edab daran uu haado reality-ga marka laga hadlo luqada badan ku hadla oo ninka uu afdheer umada Soomaaliyeed baa isagoo jeelka ku jira isagoo qori lagu hayo la igadu Soomaali waxa isku baabisay qori horta reality waxaan qirayaa ninkaas inuu gees dalayahay anigu wax ma aqoon ummadana Soomaali aan baxa lagu sheegay waxyaalahaas lagu soo aan baxa ninkan oo kala soo aan baxa hada doonisid farmaajiye ninkan caansan wallahi isaga caansan Muuse bixiyo ninkan caansan muxuu ku caan baxay xariga Somaliland xidhay ku caan baxa qalbida xiyaa yaqaani xariga farmaajo xidhay ku caan baxay Soomaa kana kii Muuse bixi xidhay ku caan baxa marka darajadu waaba intaas oo xali fulow guul ku dhow waa in yara cagaha dhulka ku sii hayso ninkan waxaanu aragnay inuu geesi dalayahay oo halyeeyay yahay dab casar isma lahayn bil aadanimo leeyahay isma lahayn dadnimo leeyahay because qabiil uu salcaayin ma jirto reeriisu galay reer dalalo tuubatiin qaar buu wuxuu la dameeraha laydin qabtaa oo dameeraha wastaan qaar buu ku lahaa nin noocaasa oo aflagaado noocaasa geysanay oo saa dadka u caayay isma filay insaa fudud lagu soo aad baan ku salaamayaa haliyay sare aad iyo aad baan ku salaamayaa maxaa haysaa warka soo daa ma sha Allah brother aad iyo aad baan kaaga qaaday warkeen alxamdulillah ninkii
ninkii dab casar ninkii dab casar oo si fudud inta lagu xidhaa haddana si fudud lagu soo daayay maxaad arrintaa ka odhan lahay wallahi dab casarniyo waa ujeedaniyo maasha allah hadda galaasiyaan galahaya anigu waa kugu soo celinaya meel baa hadda kusoo socdaa hadda mid baa hadda kusoo leexday meel galaasiya aan galahayaa marka dab casar waxa weeye dab casar ninka la yidhaahdo waa haliyey weeye waa soo caanbaxay nin culus weeye war ninkaas niyo waxa weeye caadi maaha ninkaas waxa weeye inaba caadi maaha ninkaas ma garad aad iyo aad maya dab casar anagu maanaan midda kale geesinimada uu muujiyey asagiyo waxa weeye yaa meel kasta waxa weeye laga taagan yahay wuxuu leeyahay war odaga kan wuxuu ku leeyahay midda kale saakana si fiican buu hadlay shacabka in shacabkan shacab la haysta ay yihiin oo gob ah oo waxa weeye dadka soo dhaweeya oo waxa weeye maxaan ku dhahaa shacab wanaagsan ay leeyihiin Soomaaliya baad haysato oo waxa weeye maskaxda laga haysto inay yihiin busaaka cad midda kale tood aqoonsigii la ninkan uu soo qarxiyay aqoonsigoodii ma garad maya waa aad iyo aad Somaliland sharaf darro weyn baa ka raacday reality-gu markay dhahaan waa ku fashilmay waxay filayeen ama ay wadeenba ninkaas horta waa nin welina waa u dihiyaado dee Maraykan oo xor u imanaya hadda caga badan uu la dul maraya ma garad aad iyo aad culus ninkana nin meel baan ku cararayaa galaasiyaan galahayaa meel culus baan ku cararayaa marka baan insha Allah absolutely ninkan nin masiibo ah weeye dab casar baa la dhahaa masiibo la soo tuuray weeye dab casar wuxuu kula baxay waa halaagii hoog weeye dadku say doonaan ka dhigeen laakiin erayga dab casar waa dab iyo hoog iyo halaag weeye yacni wax fudud maaha eraygaas walaalay reer Isxaaq maba haysanaba reer Isxaaq Allah barakeeyo ilaahay baaragtay dawladooda iyo sharaftooda Allah kor ha yeelo Allah kor ka dhigo laakiin waxa meesha yaala waxay tahay reer Isxaaq siyaasad ahaan way fashilmeen yacni waxbaynu doobdoobanay waxbaynu wadnay fashilkii ugu dambeeyay buu dab casar geystay the worst fashilaad ee ka dhacda Soomaaliya geeygeeda ama Soomaaliya ka dhex dhacda ayuu soo bandhiga wuuna soo bandhigayaa ninkani waa nin masiiba oo jaamacaajilaysta oo waxa weeye yaqaana qaabka wax loo qabto qaabka wax loo sawiro oo sawiraysta Somaliland horta waynu doodi lahayn laakiin dood waa naga xidhan kaas horta waa mid dab casar horta masiibo weeye nin anigu waana sheegay hadda ka hor meesha waan ka sheegay waxaana dhahay dab casar waxaan meesha ka sheegay inuu yahay nin maaragtay uusan u baahnayn in Soomaali ay gudmato Soomaali wax ka raadiso ama Soomaali maaragtay la doodo Safwan waa soo dhow aad baan ku salaamaya waa kaa qaaday saaxiib xagee ka soo waxtamaysaa waxaan ka soo waxtamayaa wadamada Yurub waddan ka mid ah waa garta soo dhow aragtidaada iyo meeshan waxaa yaala wax la yidhaahdo jabkas khaatimo ku soo socda iyo fashilaad ku soo socda Somaliland arrintaa maxaad ka odhanaysaa laakiin waa qoraalkaaga aad soo qoratay adigu yeedee macnaha uga jeeda waa maxay uma fahmin fashilaada macnaha uga sheegaa waxa weeye horta Somaliland siyaasad ahaan way fashilantay sida aynu ognahay doorashada way ku fashilmeen haddana doorashadii markii laga yimid waxay ku fashilmeen xagga xorriyad qowlka iyo qofku inuusan ka hadli karin qof kasta ama Somaliland u dhalo ama Isaaq u dhalo ama dhulbahanta u dhalo wax kastaba ahaw Somaliland waa inaad maaragtay adoo silent waa inaad dhex martid ma garat marka taasna wax cad weeye waxaana cadaynaya Somaliland kuwa u dhashay markaan soo qaado dhulbahantaha ka mida ma dhexadli karaan waa adagkasi Galayd Cali Khaliif Galayd oo nin weyn oo odaya inuu lahaa markii kamarada lagu qabto war meeshaynu joogno miyadan garanayn taasoo fashilaada oo aadan hadli karin waxaynu ogeyn ninka la yiraahdo dab casar yaana dhihin ninka odayga ahaa ee magaca lahaa ii sheeg Cabdimaalig Muuse Coldoon inuu cadeeyay inuusan ka hadli karin hadduu Somaliland dhexdiisa uusan sawiri karin waxa uu danta u leeyahay sheegan karayn marka arrimaha maxaad ka dhaxaysaa arrimahaas waxbaad horta isku qastay oo moogtahay
waxyaabo badan oo aan islahayn baad isu keentay laakiin haddii aan anigu kuusoo koobo aan jawaab yar kaa siiyo horta somaliland waxaan halkan aad ka leedahay doorasho xor iyo xalaali kama dhicin waxba kama ogid oo nin maanta waddan kala joogaad tahay annagaa somaliland u dhalanay annagaa somaliland og labada neer tatamaya waxay ahayn laba noor reer somaliland ah waxaa qaadayay codayntan ama ka dhex ahaana waxay ahaayeen dad u dhaarsan oo u tababaran oo ma garanaysaay xirfadeeda le waxaana lagu kala guulaystay codad aad iyo aad u fara badan oo khayral macquula 80,000 oo cod ayaa lagu kala guulaystay wax la qaran kara maaha ama wax ma garanaysaa la dheersan kara maaha maanta haddii maanta ay isu dhowaan lahaayeen la odhan lahaa waa la kala shubtay ama waxyaabo noocaas laakiin codad aad u kala badan bay ku kala guulaysteen taasina waxay saadaasha jirtay xataa horaa dadku ogaa oo loo saadaalinayay inay saa ku kala guulaysanayaan taas horta niyow taasaan kaa odhanayaa waxaa ka dhacday doorasho xor iyo xalaal ah oo adduunka 80 waddan baa isugu yimi oo arkay wixii meesha ka dhacay doorasho baa ka dhacday saxa muuse biixi cabdi baa kusoo baxay oo dowladda somaliland caawa hogaaminaya ma garanaysaa wax horta halkaas midmadow oo ku jiray haba yaraatee ma jirto haddii laakiin la eegayo macnihi soomaalida iyo ma garanaysaa iska xasidkeeni yaraaye soomaalidu is xaasidi jirtay hebel baa guulaystay iyo hebel baa ka qaaday waxaas wax soomaalida horta qusaysa maaha waxaan waa wax somaliland qusaysa maaha soomaalida kale uma taalo iyagu danahooda ha ka tashadaan iyo aayahooda iyo waddankoodana ha dhistaan taa intaasaan kaga bixi lahaa waa gartay maxaad ka tiri arrintan dab casar ay ku fashilmeen intay saacada xidheen haddana sii daayeen maxaad arrintaa ka dhahaysaa tan dab casar haddaan ka hadlo dab casar waxaa laga yaabaa shalay toolaniyo inaad ahayd dadka kasoo horjeeda aada u dhaliila ama aada u nacab inaad kamid ahayd laakiin maanta waxaad saaxiib dhow kula noqotay ama walaalkaa ku noqday waxa weeyaan somaliland baa xidhay marka waxa weeyaan taasina waxay ku cadaynaysaa xanuunka kugu jira ama xanuunka soomaali badan ku jira oo u hayo somaliland ay u hayaan dab casar adaan ku weydiinayaa adigoo sida ilma xalaalka u jawaabayo oo nin weyn ah oo waxgarad ah wal adaan caaw ku weydiinayaa ma yahay ninkan dab casar nin xiskiisu dhan yahay nin wanaagsan nin sharaf leh nin qiimo leh ma yahay oo maanta la odhan karo somaliland khalad bay ku xidhay waayo waxaa jira dad badan oo kasoo jeeda soomaaliyada kale oo somaliland taga oo aan cidna xidhin ganacsi ku leh wax kasta ku leh ka dega airportkooda taraa ku mara ayna xidhin waxna u geysan ay soo dhaweeyaan oo dhaafaa jira laakiin adaan ku weydiinayaa bal su-aashaasi dab casar ma yahay nin aad adiguba maanta dayn lahayd markaad si u hadlayso xalaalnimo oo aan ku jirin ma garanaysaa ducufnimo iyo ku xumee reer hebel iyo somaliland ku xumee iyo waxaasi dab casar ma yahay nin xadhig istaahila mise maaha su-aal fiican baad weydiisay laakiin waxaan uga jawaabayaa dab casar sida aqoontaan u leeyahay ama inta aragtidayda aan ka arkay waa nin iga aqoon badan waana nin iga xikmad badan waana nin iga qabiil fiican waana igana nin dadnimo fiican marka intaas waan kaga gudbayaa ma garata okay anga macnihi waxaad taagan tahay soo maaha dab casar wuxuu ahaa nin mujaahida ama macnihi nin sharaf iyo karaamo leh oo lagu xadgudbay shaqsinimadiisii iyo dadnimadiisii lagu xadgudbay bay taagan tahay walaalow su-aasha waan ka jawaabay balse haddii aad su-aal kale iga weydiinaysid jawaab kale aan kaa bixinaya okay jawaab kale aan ku siiyo dab casar wuxuu tegey waddankiibuu tegey inagoo ogeyn social media wuxuu ku odhan jiray iyo cayda iyo musabixi ha lagu jihaado hala dilo isaaqu waa yuhuud dadka somaliland dega inuu caayi jiray hadday noqoto isaaq iyo hadday noqoto beelaha kale somaliland dega inuu caayi jiray si bareed ah uu caayi jiray laakiin markii uu tegey taa bedelkeedu waxay noqotay inay soo dhaweeyaan oo si sharaf iyo gobonnimo iyo karaamo leh ay u shafaan oo ay hoteelo bilaash ku siiyaan oo ay xaflado u qabtaan oo uuna sharaf uuna lahayn ay gaadhsiiyaan dadkaas laakiin wuxuu bilaabay sida diinta masiixiga dadka faafiya intuu qaato mobile dadka kula dhex wareego shanta soomaaliya ma aaminsan tahay iyo sidan ma rabtaa iyo muuse bixi waa caynkan
kabacdi eedaab darradaas iyo khaladkaa uu sameeyey darteed ayaa waxay sababtay in ciidamada somaliland ay joogo waddanka ama laamaha ammaanku ay ka war helaan oo ay gacan ku qabtaan taa macnaheedu maaha in loo diidayo soomaalinimo in lagu diidayo wax kala ma garanaysaa laakiin waxay tahay in ama wuxuu aaminsan yahay lagu jirdiyo ama lagu maagayo laakiin taasi waxay tahay in uu ka hor yimi shuruucdii waddankan u taalay kabacdina sharcigu qabtay reer somaliland may qaban cid kalena may qaban isaaqna muu qaban ee waxa qabtay sharcigaa qabtay soomaalida kalena waxay diidaysaa sharcigii somaliland u yaalay rabta inay jebiso ay ka hor timaado taasina wax macquula maaha adba waddan baa joogta caawa oo sharcigiisa dad ka hor timaado laba calika iskaa weydiin mayso beerka inta laga garaaca jeel lagu laawaya laakiin Soomaali maaha waddankaasi dee marka walaalo horta wax muhiim ah in la isku sheegaa fiican waxa reality-ga meesha ka jira in laga leexdo maaha hadda waxaa tiri Europe baan joogaa anna in Mareykan baan joogaa dabcan labadeenu waddanka waan ka maqanahay waxaanad leedahay waddankii anaa kaaga waroon saas maxay ku dhici kartaa ama Somaliland iga waroonaan kartaa aniguna dabcan in Somaliland daranahay Somaliland ka soo jeeda Mareykan baan joogaa internet iyo telefoon waan isticmaalaa adiguna inta in lagu bad isticmaashaa baan malaynayaa si marka adiga ga waroonaan kartaa ama maaragtay Somaliland wixii ka dhacay adigu adiga mas'uuliyadeeda adigu hayn kartaa horta hore waynu isu naqaanay magac kale aad igu taqaanay oo igu baratay laakiin nin reer Somaliland adigu ma tihid reer Somaliland waa deganaan jirtay deganaanshiya lagaa siiyey waa joogi jirtay taa ku diidi maayo laakiin ma tihid Somaliland maya anigu brother anigu waan ku garanayaa hadda anigu waan ku baloogay reality marka doonayso waan ku aqaanay Facebook-aagana waan baloogay aflagaade personal inaad igu sheegtay aniga khaniis inaad igu sheegtay in aniga iyo waalidkayba ay ciidamada Kenya wasaan aniga iyo family-gayga yani sida awgeed anoo sidan oo kale live ugu jiro mowduuc ka hadlaya aydaasi aflagaadada qolisay saa horta awgeed baan ku baloogay kuna xiray dee haddana waa adiga shaarka soo bedeshay wax kale igu soo galay kumana xumaynayo anigu waxa ma sii dabagelayo adaan hadda sheego oo dhahayo wuu isnaqaanay magac kale aad igu taqaanay kumana xumaynayo anigu ma dhahayo maadaama aad kii tahay kii ma taagnaanayo oo qofka bini'aadanka qofan khaldamin ma jiro ilaahay un baan khaldamin bini'aadan kullu bini'aadan khada qof intuu khalad ka too hadalkiisa ka toobad keeni kara kana soo noqon kara taana uma arko wax dhiba oo qofku waa isbedeli kara aniguba khaladaad waan galaa dee qofka hadduu khaladaad ka noqdo dabcasar weynu ogeyn khalad buu galay yani waxa aad sheegayso dhan buu sheegay waxa aad sheegayso kaliya hal reerna kuma sheegin walow kaana xitaa lafta uu Soomaali ka yahay buu ka sheegay saas ay tahay maalintu baxay airport-ka inaad raadsatay ama eegtay mooyaane wuxuu intuu isu yeelay Somaliland intii Mareykanka joogtay inkastoo aan wax badan ba joogin intii joogtay uu gaarayay intuu meel ku soo ururiyay wuxuu dhahay war ma cafideen dambi baan ka galay dalka iyo dalkaba ma cafideen waana ku cafinay baa lay si fiican waa loo soo dhaweeyay si fiican wuu tagay mar walba codsi iyo aflagaadadii ka dhacday codsi iyo uu ka dalbanayay anaa geystay anaa muusash bixi qaayay anaa aflagaadeeyay anaan hadda ka noqonayn oo waxaan dhahay nin ka noqonaya aan ahayn oo reality-ga oo bari iyo saada ma rabo inaan burcay hargeysada ka tago wallaahi billahi tallahi anaan kamarad ka dhuuman oo nin kamarad ka dhuumanaya aan ahayn tabta aan kamarada soo dhigaya anaa family-gayga sheegaya qabiil Soomaali ka aan ahay waxa way ugana leexamaayo Muuse Bixi maadaama uu xilka qabtay hadalkii ka tagay waxay anigu ma caayno ma khaniis baata afkaygana ma aha inaan nin islaam oo Soomaaliyeed khaniis ku sheego afkayga ma aha markii xitaa khaniiska la soo dhigo ka hadla aan waqooyigan lagu soo dhijinay anigu khaniisnimada ma naqaano waan ka hadlay laakiin siyaasad ahaan iyo Muuse Bixi waxa uu wato iyo mabda uu wato ee foosho xun baan anigu ka hor imid diiday tii uu ku diiday siyaad barre ayaan isagana anigu isaga ku diiday maceeba markaa iyo aflagaadan geystay hadaan ku dhaho Muuse Bixi kuma rabo shakhsiyan waxaad samaynayso qaabkaad u hadlayso iyo dhaqankaaga ma nama quseeyo Somaliland ma ahaanaysid nagumana hogaaminaysid dhaqanka hadaan lahdo maceeba samee hay ma aad samayn laakiin muwaadin hadaad tahay waa xaq baad u leedahay inaad ka hadasho waxa anigu dabcan waxaana markaan ka hadlay aan soo qaaday intii uu dawladda soo galay ee siyaasadda aan wax ka qaban karay ama wax ka bedeli karay ayaan ka yiri markuu noqday madaxweyne noqday aan lagu ogaaday waan soo dhaweeyay soo dhawaan madaxweyne waana u hambaliyay haddana waxaan la ilaahay kii dalkiisa iyo diintiba anfaca Allah ka dhigo nin maanta qoriyo xabad wata ma ihi laakiin siyaasadiisa iyo qaab uuna bedelay haddaba qaabkii u hadlayay waa Donald Trump kaas kaloo ninku ahaa
دونالد ترامب سياسته markuu soo galay bedel hadalkiisii yani muslim caayigi badiyo xulay barinku xulay wixiiba markii uu dhimay oo calm down sameeyay waana loo ogolyaa qofka bini aadanka qalada uu ku soo gali karaa wax siyaasadda dhexda markay joogtana hadii wuxuu shaqayn wada la saaq ma shaqaynayso wax laga bedeli karaa marka horta aniga wali waxaad ila daba taagan tahay in badan aad marna ma jeerteen igu saydhaa marna igu saydhaa bahalkii laakiin horta qadaad weyn waa noqonaya sababta aan ku noqonayaana waxaan ay tahay isaaq meehi horta adigu inta doonaysa waa inta habar jecel ma ihi habar yoonisna ma ihi habar awal ma ihi sad afarta habro horta midna ma ihi nin dhul bahanta abana in badanna waan kuu sheegay waxaan ka ahay ka hadda maanta haysta ciidanka haysta waa nin dhul bahanta ee Soomaaliland ciidankeeda hadda uu hogaaminaya ninka maanta wasiirada u ahaa wasiirada ugu culus muus bahalki qiran meesha uu feeray maanta isku feeray meesha ka fadhiya baasha mali nicda ka hayaan siyaasadiisa jecelayn horta waa dhul bahante nin ku qanacsanna ma ihi oo maaragtay Soomaaliland riyaalada hadda doonayso run beenta rag kama nixisay run hadda doonayso nin siyaasad ahaan ku qanacsan Soomaaliland anigu ma ihi لأنه سومالي لام وحافظ أفريقيا دم بانا كو قنع سنين بقان ربعين هالمدحوينة يالتو سيبا لو قنع كرا مركا عنين هالشخصي هالمقالة كو قنع يصدح مقالة برعاية هرقسية بالبرا سيبا لو قنع كرا إن الدولة نقضان هاو قف دمير حلالة المحلالة كما قنع قف قصته حلالة قرآن كإلهي آيات كو دقيسان له الشيخ مصطفى انتو دقيستو آيات وكهل ليه ويتفارارو قيه إلا كلا تقو يعني مر والبو كوسو قادان دقالك الشام يبدلو سو قادان ايو وإنو لها ليه قادان لهنا دين داد اسلام حلالة نهي لكن وينو قران لعن هاي هدي مركا لو وحا دونس سومالي وحا ترى وحا دونس هداد ويدو وحا كفرسوي لا سمية صومالي وسراع ويدو صومال صومالي وسفهم ويدو صومال دركي أما دارات كوسفهم دارات سكت دولة سكت اسفهم ويا صومال أنا أقول ما دارات أنا ودكتور واحد من هاي أنا علمات إني من درجة يكون سنة يمنهين غير شيء حق كورات سنة درجة منهين ودرجة إلى هاي بانسية داراتنا نقدر دقي دولتنا نقدر دقي سدح دولة ضد أفر دولة دارات ليا واحد قدر سانك الرهاد وجبلاند بودلاند ماشان كلا كيني كشاناد يتكلا ابني ابني صدق لبا iyo inta kala Soomaali baan kula wadaagna kursiga Soomaaliga ku fariisan karnaa laakiin waxaanu dalmoodnay Soomaaliland inaan wax ku darsano Soomaaliland wax la qaybsano Soomaaliland in lagu caadino lagu aflagaadeeyo maanta daarood la dhaho waa naago daaro way noo naageeyaan daaro waxa hadana Ethiopia ku qasbiya Ethiopia amaanasan ay daaro tahay oo ninka hayste kuugu xiga xaafad ahaan ina ila yahay oo in ogeyn dagaalkii ka dhacay barigii ma intay geysteen nimanka la yiraahdo ciida galuub ay geysteen dad inta iska laayeen wixii lagu sameeyay saacad gudaheed intii gaari gubeen iyo dameer gubeen bahalkii wada adogeyd waxay ku sameeyeen saacad ka bacdina intii niman ogaadeen soo yacan dab ku qabtaan markii dhamaan walaalada Itoobiya ay gabdhaha u geynayeen bahal waan ognaa wala siyaasadda Soomaaliya ayay dhigaysaa hadaba ay dhigayso horta dhigayso siyaasadda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Puntland iyo Jubbaland inta baan ana ka badiyo ana hadda waxaan ku leeyahay Soomaaliland baan daarooda wax la qaybsanaya daarooda kaaga daaroodna ninka ka haya dhaqaato markaan ku leeyahay jabkeeda waxa la rabtid baa saas sida aad u bugtay aad hadlaysid baa waxay tahay inuu daaroodna aad kala jabsato qayb ku soo gashay waliba nimanka ugu tunka weyn waxa badda kulul aad soo xarayso aad quraan iyo faatixa ku soo xarayso hodhow marka qabsatay meesha la qabsatana aad tiraahdo bal iga kici waa kale waxaasina waa barjamnimo waa dulinimo waana waxa kugu fakaraya ka اسمي أنا قلنا ساعة ما تأكد أحمل لكم ييركرو لانجاب باتاي مسكحدين الرأيين بعد لانجاب وتاي أكتر إذا أنا أمة صومالية نو مار قبيل كيسمو ويديني هل كان لو قبصنا يوم لو حماين يدان وين الدعوة أنا والله بالله طلع وحكي دعوة مرايكم بيك دعوة إنا وحوي أن كمرات طبعا بس طبعا اسم الله أنا ريالتي وين كمان الله يا حقيقة نو برا مر بفيسبوك هيسو بدل مر بشارع هيسو كما عاينو كما أفلقادين مر بشارع هيسو أما رضوان صقر أما صفوان صقر whatever you are we can speak. I can speak as my whatever I party and Somali I can talk to you as a Lulpahanti. I think Somali way. قبيل كات Somaliland دربان. Okay, Somaliland دربان. إنه دود ندود تدارتنا chance كسيه. What قبيل كات هاي Somaliland كشيء. أنا Somaliland بقول دودي يا واي Somaliland. هاي يقول دودي دي. Somaliland أنا كراه. طيب نقعد سايسنا Somaliland أنا كراه. قبيل كات إيش لفت. أنا كشيء أنا كله Somaliland دربان يعني Somaliland أنا كله دودي أديكوا أهل Somaliland يهبودي من قمير خلاه العرب إمين كهرتا أنا يركض هذا فرت واحد لا يودي أفلقة دي سو واحد تري أمي صنبا إنه وسطي وحبات كهذا الشباب لكن إمين كأديك أفكار كهيا إن اللانجا بيوشك إن عايزنتي إمين كد ضد أنا مخلو يوم خاتينه لانجا عيب ما وريا نسق ليش حساب توري أنا نتعرض أنا absolutely أم تاس عيمة
minority baa tahay taa aqbal you have to take that you have to take that reality we not ma reality kama leexana isaaq iyo dhulbaanta dagaalamaad maqashay maxaa way haddaan la gaabahay dhulbaanta ula dagaalama saado isaaqa why you don't daaroodka kale why ala markii soo qaad okay let's do okay Puntlander baan let's do that Puntlander baan hay waxaan ahay harti let's do that okay taasin ku dagaalam karaa at least saamooda hadallah leedahay xaqna beer jecel xaydh okay ilaahay afkayga mar ha iyo ma yahay ka wada yeertiin adiga imika Soomaaliland mar sheeganaya imika hadana Puntland ku cararaya marka adiga dhanbo macni qof warka Soomaaliland qadiyad ahaan baan qadiyad ahaan baan ahay qabiil ahaan ma ihi qabiil ahaan minority baan ka ahay marka Soomaaliland noqoto dhulbaanta noqonayo dhulbaanta is minority waa bahalahan kale oo kale gudubinsi oo kale gudubinsi dhulbaanta waa looga inay minority ka yiri saaq meesha ugu badan tahay saa hadaa rabto inayna wax u qaybsano minority aad saa u hadlisi absolutely waxaan ahay baan ahay haddaba dhageyso anigu aan kaabna waa tahay saaq iyo taarod wax la isku dhigay bilaa calayga dhageyso haddaba niyo aan ku dhageysta been baan tahay isu sheegnay dhageyso anigu qabiilka aad tahay cid kasta oo anigu qabiil horta ma ka hadlayo anigu marka ugu horeysa waxaan kugula hadlayo Soomaaliland ma kugula hadlayo anigu qabiil isaaqani waxaan anigu ma ka hadlayo iyo qabiiltoon anigu nin baan ahay warday adeer waxa la yiri Soomaali waxa ku maamaada isu horta hagar sagaara iga kacmo iga durug male adigu maxaad ka kurutaa daaroodkan isu laandheerayna isu buubunees laynaya ani yani waa wax ay kala kacaan ali abudla ani ilaahay ka baqno minority reality waxa Soomaaliya baabinay waa minority dhageyso waayay hadaba ani Soomaaliland baa marka taaganahay qabiilkaaga aad kasta tahayna waan ku ixtiraamaya waan kugu qadarinaya dhulbahanti hadaa tahayna dhulbahanti waa wadankuuna la leeyahay maanta intaan dawladda ku leeyahay ayuu ku leeyahay احترام iyo wanaag iyo sharaf buu baahan anta ayaa ku khasbasay inaad saa wadaasho ogow aniga khasab iyo tan iguma ah ogow inaan Soomaaliland u hadlo anigu tan iguma khasbay laakiin adiga dinkii duruufta ku khasbasay saama ogi maya Soomaaliland way naga dhaxaysaayo labadeena dan baa ma suuqan keenaysa marka hore magaca anigu I have choice badan ma haystaa because I'm Darod adiguna isaaq baatay you don't have choice saama ogta إنك واحد واحد دروي يعني أركب ما يقدروا ما رون عن كهذا adigu choice kala ma haystaan Soomaaliland hayn waayay Soomaaliland choice aan hayn ma haysan imika hadii ku jawaabo waan si sax ah ugu jawaabana waad caytantay baad oranaysaa laakiin anigu waxaan qoranayaa wallahi ma caytmayo personal attack iyo sida aad hooyada waxa wasa nimanka liyaa bahalkii iyo walaasha bahalkii baa xaq haystay waxa aad sheegtaan haday noqotaan oo kula hay haday noqotaan waxba iga qaadmayso oo reality noqonaysa waxa reality aad garac haday igu sheegtaan garac ahayn taad miinis ma ii waxaan ahayn qof kama xanaaqay mana dhibayso marka laakiin adigu waxa ku dhibaya waxa tahay isaaq inaad tahay ma diidin ma diidi ma yaan isaaq inaan ahay qanacta waaya ana daarood baan ahay taasaan ku qancaya haye adna daarood baa tahay waa sax ilaahay baa ka beeray daaroodna waa dad sharaf leh cidna ma kugu diideen cidna ma kugu haysato inaad daarood tahay waa tahay daarood nin baanta oo hartiya oo daarood ka sii galaya tahay waa sax weeyaan meesha waxa taala wadan baynu wada leenahay dad baynu wada nahay meel wada degan oo isdhalay oo is-ixtiraamaya oo wada degan marka haddii aad igu qiimeyn weydo wada deganaanshiyaha aan meesha wada degannahay waxay noqonaysaa in meesha xumaani timaado iyo ma garanaysaa in meesha xumaani timaado noqonaysaa marka waxbayaan hadal kugu daalin nin baa tahay kacsan oo markasta waxaad ka taagantahay waxaad ka hadashaa waxyaabo caadifad iyo qabiil iyo waxaad ka hadashaa anigu qabiilka la hadli maayo aabahay waa Soomaaliland hooyadeyna waa Soomaaliland qabiilkeeduna waa Soomaaliland adiguna inaad Soomaaliland adeecdo oo aad calankan saddexda midab leh ee tawxiidku ku yaalo inaad huwato oo aad garbaha saarato oo aad adeecdo ayaa laga baahan yahay beritoole iyo saad dambe tawxiidka sheegaysid ka hadir caaysi ma hamiya waxba aniga ku dhiman tawxiidka ki hadir caay ma tiimiya goormaan caay hadir life ma ku jirti oo nin kale oo reer Khaatma life ma ku jirti ha waxaad lahayd ma xusuustaa de Soomaali ma danyeer ba Soomaali ay ka timi no danyeer Soomaaliland baa ka timid baa tiri saaq anagu saaq ahaan baa tiri waxaan ka soo jeednaa danyeer laakiin taa kuma haysto de anigu Afrikaan ahaan baan uga jeeday laakiin Arab baa ka faanaya anigu markastaba muhiimadeedu okay Arabtana ka faanaysid tawxiidka ku keentay ma hamiya ilaahay kugu soo dhiibay waar Arabta diinta Islaamka iyo tawxiidka Nabi Maxamed
إلهي قرآن كيس يجي نبي محمد يو هواي مساق وهواي نبي محمد بلا عقل اوكي نبي محمد مساق وطغانا سكين الدين هي سكين عرفت الدين تسيكو كنت نبي محمد بعد كذا شيء بعد نورد نوتان نبي محمد يهود وحكذا شيء نبيه دي كلا ودم بيهود ودين كلهم نعبيه كذا عرفتي ونيو نجلسو نبي محمد شخص بوهم وصادر إلى واي توحيد كميان نجح تامر كان أنا قال لا عنك التوحيد كله توحيد كم حنا أقول لك عرب هأمانين إيمن كنا وأنكو حكمة جورية ولا حكمة ملهي دين ملهي وحبة ملهي جاهل بعطاي هندكاب بعطاي وحبا كور إيمان وليجا ما الأرج وحبرش ما تقولين وليجا ما الأرج مير كود دوريان وليجا دمر يبقى إسلام الله رقم سي وليجا جورج هو إذا كمان تجي وليجا وحبا ما تصو أرج فكمان كوجو حكمة جورية إيمن كنا نبان هاي أقول له أو أدونك واحد من كوج أو واي أرج أو حمل له أو رج وحلاس واقع بصري أو دولة بدن لسه شقي إيمن كنا أديك wax allaale waxaan kaaga martay ma jiro imkana ma salaam life kaagina fuck off baan adiga iyo life kaaga wax handicap baatay wax allaale waxaad istaashaa ma jirto adiga dhan nacdal ayaa wajigaaga ku taala ka muuqata waayo waxaad aaminsan tahay daaroodiya ayaad la soo taagan tahay halkan intaad soo taagtay Facebook daaroodiya waa maxay daaroodiya macnaheedu daaroodiya Somaliland baan kala hadlaynay iyo qaran annagu waxa taagantay daaroodiyin baan marka dhamaysato waxaan ceeban sheegataa tahay dhul bahanta waa dad jiro weeyaan oo waa nimanka aan wada deganahay wada joogno ee aan kala guursano adigu waxa tahay wax kale meel kale laga keenay Somaliland maad arag manaad ku dhalan mana istaahishid Somaliland waxaad ka timi meel kale aad ka timi dhul bahantana ma tihid dhul bahanta waxa ah kii hadeeraan leefkiis ka hadlay baa dhul bahanta oo waayo وان سيدا نصب كو هادلا ادوك لكن سيدا يبير كادو هادشا يبير با تاي ادوك يبير waxaad gashay waxaad gudatoona ma jirtaan noloshaad ka dhacday America Islam bad America Islam kugu haysataayo Islam bad caruur u geysa beesha lagu xanaanayo caruurta xaqiiqada wax allaale waxaad gudaan jirtaadu noloshaad ka dhacday afkaaga ma adeegtid xataa life baad soo gashaa naca Allah waa dhamaysan maanaysan وارمان لما يصير دولي باتا يا برص ده رجال ولا دوره عاود ما تصير إسلامه aad baan idin salaamaya asxaabay waad aragtaan qofka islaamka waxa weeye waqti anigu sida Somaliland dadka u caburiso ama ay u dhaqanto nin u dhaqmo ma yihi sida dadka xuushta ay u dhaqantana ma yihi ilaahay damiir iyo dadnimo ilaahay ka duwan bay siiyay runtiina Soomaalidu waxay tiraahdaa xagala geelo wax kilkil lagu qariyo ka weyn al yaani qofku markuu xanuunsanayo ama uu bukaan socodka yahay way adag tahay inuu wax qariyo laakiin waa guul waana guul ay gaadhay maanta waxa weeye Puntland waa guul ay gaadhay kilinka shanaada Soomaaliyeed ee mujaahidiinta iyo daraawiishta ku nooshahay waa guul ay gaadheen Sool iyo Sanaag iyo Cayn alxamdulilaahi rabbil caalamiin وانا قول ما انت ونوسو هي إلهي جنادي تفردوسها سيو هادو لنتانا إلهي جنة تفردوسها كو إرساقو هادو نول يهانا جيس قدالي الصوماليات الدب عصر وقول نوسو هي صومالي اللان أردن ويعبادين كيسا يريا كيسا وين بوحي دهان عادا يأكلوا العادين وحينا دهان دارود حالك قبقبتو جانيسا لقو راديو حالا لايو دارود آن قبقبانو daaroodna waxa weeye waxa ah dhulbahanti iyo warsangeli wad maqlasaan nin qabiil anigu ma yihi laakiin wad maqlasaan waxa life ka socda sidoo ninkaas u hadlayo heer de hadaan u sii daayo hadda anaa ku jaray laakiin hadaan sii daayo de wax ma aragtay maanta oo dhan iska caytamayo qofka ninkii waxa fiican uu isqaban karo dadnimo uu isku qaban karo iyo damiir ilaahay uu siiyo isku celin karo لكن انت سمياشا way ka baxda يعني heer wuxuu gaaro iska ciyo iska ooyo oo iska anigu ma xeebaan sameeyay hadaan adna xeer isxaaq baata ana daarood baan ceemiye taas noqota يعني saga ila meesha ila soo galay ana hadaan daarood baanahay isna ana war heer isxaaq baatiin wax dambiye miyan galay anigu waa maya muxuu igu la dagaalamaya marka why there is no way aad igu la dagaalanto ilaahay baa iga dhigay waan ku qanacsanahay qanaaco weyn baan ku qabaa wartaarood oo dhan hadii la waado reerka aan ka ahay Soomaaliya oo dhulbahanta ayaan ku qanacsanahay because danta ay ku kalifaysa no choice
no excuse ilaahay bay iga dhigay maxaad ugu qancilaaqday marka isaaqnimadaada maxaad u odhan weyd dawlad saaqay maxaad u odhan weyd intaad la haslaan laaniyo aad dadka ku xagafsanayso dadku baadhanayso maxaad ugu qancilaaqday dawlad isaaq uga dhigi laaqday war isaaq baynu ognahay nimankii gobtaha isaaq ugu gobsanaa oo habar yoonis anigu aanak ilaahay baan ku dhaartay waa dadka horta waa dadka ugu quruxda badan waxa meesha diga ilaahay baan ku dhaartay waa ummadda ugu quruxda badan waa ummadda ugu diinta badan waana ummadda ugu geesisan ugu dadnimada fiican dhan kasta aad u qaadaba waa reerka koobka galaya number 1 waa wallaahi oo billaahi oo tallaahi Somaliland habar yoonis bay ku joogtaa meesha xiniye habar yoonis bayna saaran yihiin laakiin ma oga koob shaana kama cabaan waxba kama aha reerkan ku sheegay hadana laakiin dawladnimo gobonnimo nasabnimo ayaa ku jirta taas way bayna ku degan meesha marka alxamdulillaah rabbil caalamiin anigu ku qaraxsanahay waxaan ahay ilaahu ma lafta ugu hooseysay dhulbaantaan laan gaabka ugu hooseeyay daaroodyan ka ahay haddana waa ku qanacsanahay isaaq iyo daarood baa isaaq iyo hawiya isaaq iyo waxa dagaalamaad maqashan dhulbaanta bal fiirsada miyaad maqashan daarood iyo isaaq baa dagaalamaya weligeed ma dhicin awood daarood iyo isaaq ay leedahay weligeed ismay wajiin wax iswajiin karana ma adduunkaaba nagu eeganaynba adduunkaaba dhahayo xuquuqaaba nagu dhacsan because waan ognahay anigu saan amabda aaminsanahay nin isaaqa xitaa wallahi markaan sheelaraynayo hadda burco kala dagaal hadda kala kula wallahi markaan feerayay laan gaabnimadiisa saasan feerka uga yareynay wallahi oo billahi oo tallahi ilaahay wuu arkay ana afku dumin kara ayaan waxaan oran jiray war waxaan de hodhow wala dhahayo maxaad ku dishay waxaan iska ka tartiibso xabaar intaan xanuunjay markuu cabaadaba iska sii daay markaasaa nin habar yoonis oo maamulo abaali intay soo gurato talaaya bacala isdhex hortay oo wadada in lay gala la ogaaday la damcay yaa niman habar yoonis dheh war kaalay waa habar jecel aha kaasina ducuf fadhiya habar jecel dhan mawada ah mid ducuf oo ah talaaya rag markaad soo doonato xiniyahaaga la fuulaa xiniya rag kale laguma xisaabtamo anigu hadda wadankan aan joogo xiniyahayga ma ku xisaabtamo nin kale jeebis kuma xisaabtamo nin kale xiniyiisa kuma xisaabtamo kuwaygaan ku xisaabtamo kuwaygaana waxay ah marka saaxiibo horta nin jilicsan baa tahay nin liitaa tahay nin aad u tabcaanaa tahay nin halkaan intuu soo fadhiisto nin wax bartay baan ahay nin aqoon leh baan ahay nin diinta leh baan ahay yani nin kalena dhahay diintaad ka baxday aqoonna mari taasi horta waa kuu dadnimo xumo aniguna ma odhanayo kuguna faani maayo waxaan ahay waana nacasnimo weeye xoolana ii noqon mayso laakiin jawaab waxaan ka bixinayaa yani mar walba wax marka loo baahdo ayaan jawaab ka bixinaya anytime I need my power that's what waa xilliga aan use garayn karaa ma isticmaali karo laakiin waxaan kuu sheegayaa ciddaan ahay adiguna saaq baad ka tahay Soomaali ana taarood man ka hay Soomaali ama hiraab kacso war hiraab kuma oga oo hawiye kuma oga ilaahay baan ku dhaartay hawiye inaysan ku aqoon meelahan ay la yaacaan markay kicinayaan ay sheekadu jiq u noqotay hadda qadaad weyn baa dalaa day hadda qadaad weyn buu lahaa hadhowna wuxuu qoranay waxaan isla nahay hiraab iyo hawiye iyo bahal buu soo kicinaya taasaa dulinimo laakiin anigu haddaan u baahdo waxa weeye haddii loo baahdo daba casar baa daba casar baa ka hadlaya daba casar baa jawaabtaa ka bixiyay youtube-ka galo daba casar dhegeyso wuxuu ka bixiyay arrintaa anigu waxaan rabtaa inaan saaqay adiga laftaada inaan saaqay baa laga yaaba oo dulinimo iyo daanyarnimo kuu geystay inaad afka rabta inaad ii gelisay saaq war anigu isku awood ma nihin isku darajana ma nihin kitaabaan ka gudbaya qabiilla inaad afka ii gelisid adigaa keenay adaana cabaadayo hodhow nin anigu haddaan cabaado haddaan wax geysto nin ka noqda anigu meeyi hadda wallahi inaan kuu kaftamay qof haddaan caayo weligay ma odhanay sorry adigu waad tidhi life baan taadi soo gashay hadda luuqiga soo cadaadaas sorry wallahi saaxiib war waxa anigu ma baahni sorry iyo naaci iyo waxaas aniga waxbay mata waan ku baloogareeyay facebook kala adii soo samaystaa aniga iga soo galaysaa sanaaga haddaas waa inaad garanaysid mooyaan maxaanu kaa garanaa RJ sirci hadda kamarada aad iska qanay kamaradii aad aragtay in kashif kugu dhacay kamaradii isku ka furtay dulli baa tahay aan kamaradna garanayn nin aqoon leh wax marka hore ka fakiraa kamarada ku fakanaysayo silican u ciyaayay waxaan dhan iska hagaajiya anoo kamarada si live waraganimo lama soo fadhiisanaa ninna wajigayga kama qarin naagna kama qarino yani waan naqaana adoo kalena sida loola hadlo nin maanta uga daba fadhiisanaya saaq af iyo adin ma ihi dhulbaantaan ahay saaxiib halyeeygi Soomaaliyeed baan ahay Soomaaliyo dhan baan aabba u ahay saaxiib aan af iyo adin ba aan ku hogaamiya daraawiish baan ahay saaxiib
وما باني ما تساقط هالك يسافر فلسطين سماري ما كعادنا ماش سياد برهان إري سياد بركيب بادي أنا جو هذا بقى البهانتو أكيد باديني فقش نوانا وأنا كوفانان أنا نقش باتا وأرون مركز دونس إنجليز كاتبه كودتي وناقينسي إنجليز نواد جوعنا كسميناي so لبني نو إسكتر شامنا نقالوا ناقينا نقال كوري منايا ينشهيدا ناو إسكتر شامنا آخرنا ساسين وكل درجة دوانين درجة أدوك على وعب براوريا همودين الآخرية أدونك إلهي وحوكينا بالآدم إن إلهي كسو عابدان إلهي كسو برتان إلهي سيقو عن أصور نغمان مركانا توابت آخرية كسو أورتك مركا توابت الهلكا كب حسي يا الآخرين لتغيسا أنا توابت الهلكا كب حيي أيان آخرين لتغيي كن بانكو شيغيا ونيو waxa horta anu kunu ku wareegamay islaama iyo nisaa waxa horta meey oo gabdha Soomaaliyeed caay aan Afrikaadi horta meey laakiin islaan adaa habar jeclo habar awal habar Yunis habar waxaan oo dhan habraan adaa ku aftirsada absolutely al daaroodi yaaniga hoosadaan u aadana waxaan qonayaa rekalo reguman ku aadsa waliga islaan anagu ma soo maro balnin daarooda oo islaan ku aftirsada shay halkaan abti waxa la afkaaga ku xidho ku furi waa la kaago anigu haliyay dhalay baan ahay waana ku qanacsanahay waxaan ahay Soomaalidu nin ku tumanayo dhibaato u geysanay meey wallahi caawada soo martay adigaaga sa u liitay sa Afrika dooni wallahi meel fiican ma ku siixinay cunto fiican aan ku siinay wallahi geeri dhulbaantaan ku qalaya wallahi حنيه البعضنا كوسي حنسا حنيه هذا الله يبغى أدوك كتير يسوي هذا خبر مركب تماده هذا نينا تقولي كبحثه والله أنا كفتمي حق أفلق عاد السي أخلاقيا لسن ضمن ما أهان لسن أنت بنا تدلي بعد كتر وين موقتها مركب كل يران ما هذا العات وليد من هذا العات يجينا وعدي جوا كاسعدا لكن شرفت إلهي بعد كلا شرف إلهي بأن هكذا كلا جالسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي أي شرفتي سكياني قف بالآذن مو شرفين منكينين marka run baan ku sheegaya sharaf baan okay horta alxamdulillah Yurub aad ku nooshaan America kun war meel kasta waan kaaga laandheeraysna laandheeraha adduunka dhex jooga saaxiib xaqana laandheeraha ummadda Soomaaliyeed baan dhex joogi xaqana ummadda adduunka laandheeriisa hoos jooga daroonis baan ka hortaarsanaya wallahi baan ku dhaartay Donald Trump madaxweyne la yiraahdo ilaahay baan ku dhaartay adoo kale u qubeeya وحيريا أيا دحت أيا لا تشوجا صاحب عندنا يوروبا تشوجتا وجيبي هذا حافظه دحت لسه أتكون دحوارات أساود حراسة ملا أقول لي تلوى تشوجتا ورمي الله بيجيب جار الصاحب إلى هاي نسكتت أنا قمرت لجنده تعرض هو كاري مرايكن يا صوماليوي أنا صوماليوي قلت هذيك أنا برعاية هرجيسة صوماليا محاله ده ادونك كلا يوروب يا عربه تساوي عذاب سو تهريبتي marka tahriibsan kooga madaxa ka garaaceen ama hooyada bay garaaceen abaha bay garaaceen ama walaasha bay garaaceen xun bay garaaceen ad madaxa taasa dhibas amba way dhibtay ay know inuu saaq badan meesha lagu garaac ma jecel carab ma jecel waxaana ku nacay saaqa say garaacaya wallahi inaana jeclay because Soomaali ahaan markay garaacayaan uma garaacaan waxani waa Somaliland iyo saaq waxa u garaacaan waa Soomaali I know that that's why baan u nacay qadiyad baan ku nacay waxa weeye reality waxay tahay nin anigu sida habraha u hadlamayay sida habraha aad u hadlaysna kula hadli maayo markuu hadda leeyahay caruur saddexaad u dhashay ama lagu dhalay muxuu ka wada had maxaa bal ilaahay ku dhaaf maxaa laga soo qaadaya ma caruurtayda la Facebook wax laga hadla bal markuu ilaahay ku dhaaf nin weyn oo siyaasi u sheeganay dadnimo sheeganay caruurta saddex war caruurta ilaahay baa na siiyay war caruurtu caruur laan dheera caruur gumaysan ma la gumaysto waa caruur Mareykan caruurtaydu doqontaada meesha ku waxaysanay kaamka ku jirta ma caruurtayda kaamka ma jiraan caruurtayda kaamka ma jiraan baashaal bay ku jiraan saaxib United States of America ay joogaan I'm serious marka mid xanuunsan baa taada buke
إلهي وحان كاغا بريا إن حنونك إلهي كا قادو haddii ilaahay uusan kaa qaadayn mid xanuunka ilaahay u daynayo ku abaadaya tahayna ilaahay in wadanka ku dhaafo ilaahay baan kaaga baryanaa oo islaamkan kaa dhex qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka waa inuu kaa dhex qabto inuu ilaahay ku toojiyo ku xanuuniyaan ilaahay la jecelahay aanu jecelahay laakiin taa haddii la waayo bedel khayr qaba oo cadaabka ifka allaha kugu soo saaro iyo adduunkaba saasaan ilaahay kaaga baryanaa waxun baad nagu sheegtay waxaanan ahayn baad nagu sheegtay dadkaygii carruurtayda meesha ku aflagaadaynaysa soo qaadasaa يعني أنا نقول ما أنت ما تي عروق وريجمي عرونا أطلع شيء أنا عروق الآن كايسو ورا ما هيو هذا كل بس عروق الآن تمد وخير قبل الله كسيه هذا سين الله كسين أنا قبلا يدل حماك لموسيدك دقة إلهك عقد حقبت ضدك إلهي سبحانه وتعالى أنت أكون شفت آمين الراعية قفكم وقف دول يسون حنوصا وإساق كويس بكا إساق عادي ما هو إساق قرع كان إساق حلال ما إساق أنا أقعنا إساق حلال maaha isaaqna waa dadka meelahan hargeysiyo aad baa dhibaato uga socday isku guurkiyo wixii baa la isdhex yaacay ingiriiski talyaanigi carabti waxba saa isu dhex guuro dad badan baa ku dhashay oo sayidku intii uu ka wadanka ka qasay ama siyaad baro u qasay dad badan baa dhashay oo isdhex yaacay daarood badan oo khaldamay baa jiro meesha jooga oo daarooda oo laakiin daaroodnimadii ka khafiifado nacayb galay oo xanuun ku dhacay marka ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay wanaaga waafajiyo hadii kale ilaahay ma aragtay cadaabka uu soo dedejiyo marka waxaan leeyahay cadaabka Allah ku soo dedejiyo darxumo iyo dulli baad Soomaalida la dhex taaganta iyo Soomaali kala tageed iyo falxumadeeda wadaay wixii Soomaali wada ee xumaan la doonayo ilaahay ka qabto daalinka ummadda Soomaaliyeed Allah ha jabiyo cali khaliif galeed Allah ha jabiyo xagla toosiyo Allah ha jabiyo mid kasta oo la wada Allah ha jabiyo siilaanya Allah ha jabiyo kan kale blogga cudurka xanuunsan ilaahay ha jabiyo ee dulaysan dulli badan baa jooga waa markii labaad walaal aan baloogo marba wuxuu ii soo samaysanaya Facebook cusub Facebook-yada waan ka guuraa ilaa 5 Facebook baan ka soo guuray intaana dad dulaysan oo noocan aan uga soo guuraa laakiin waxaad ogaataa inaan uga guuri doonin waxaad ogaataa nin geedi yani sharafnimo iyo Soomaalinimadii waa la waayay anoo dhul bahantaa ayaan waxaan maanta doonay daarood anaan u doonan daarood anaan dadnimo ka raadsan Soomaali anaan doonan anaan daarood ahayn Soomaaliya oo daarood iyo hawiye oo wada socda iyo dir ayaan hargeysa ku baadhaantayn doona wallaahi oo billaahi oo tallaahi jabka iyo buufiska iyo waxa weeye dulliga iyo bahalka ku soo socda ummadda isaaqana aad baan uga digaya waxaan leeyahay in islaamnimada tawxiidka qabsada ilaahay ka baqa soo raaca ummadina Soomaaliyeed aan ka ahayn sii guura ka qaxa meesha wallaahi oo billaahi oo tallaahi dawladda hadda way soo dhigatay يعني تونك دولة دي أمد تونك وجود تونك وين دولة صوماليات بعد دلتي تذكر وجود تونك وينات صومالي أو أبقالي هوية أيام ما تدولة جهل حلصة والحقود شو قايسة ورجورة والله بالله طلع أمد الصومالي وجود تونك دارت بالقبضانة يا الحين يا الله وحاول حبس قال نجيا حقود شو قايسة الساق وحنيه لها إلهي توبت كينا مربى يكون دوذاي توبت أنت نفتك وجود تقوم بتوبت كود دوذاي أنا وحنا لا توبت كان توبت وايدي سنت إلهي سبحانه وتعالى توبت حتى نيك وانا وذلك السنين كنا في سجوا أروجع إنه نيك حماية هاي عيتمي فيسبوك يدا عايتري وذوقتها أنا ساعة ما قعدت كين ما كان ما قع كلا دي سجوا السي وحين ما خبينا فشلوا أوجع إنه وحبيها إنه دقن كهاي هذا الكيسان قانا سان قرنيا قبيل كيسان قرنيا قال يعني إن كانوا هذا السوق قري يعني وعاي يسلي إن كان صبار يسوقوا قال يعني إن كبران بنقان ولا الذي ما هلك صار لي كرا والله ولا شيء ما صار لي كرا هو يدي ما هلك صار لي كرا سوى كده أبي ما صار لي كرا على يعني فاميلي صارن رياب رعاية هرجسي شوجا محل يا يوروبا أنت ما هلك صار لي كرا لكن ما هنساء ودعم ميه نساء ودعم شرف ترضى عنه مري تضوح كفانا من يكون رادي الضب دني ما ضيد أيام وحين أود أنت أطلق إن تشيستها كلا أنا حبضها هنا تشيستو يا والله أود أنت لا دعو يا أود أصلا لا waxaan ninka yiri markuu luuqayga soo caysay Afrikaadii aan adresskayga ku qoray maana ku iman sada imanaya adresska ma qoray adreskiisa magaciisa ma sheegi karo ridwaan ku maray iyo sifwaan ilaahay aan ku ama nin baan soo waanaa sifwaan ma naag baa mise waani ila wixii la leeyahay hal nin buu lahaa ma naag baa sifwaan mise waani daliilkan diibay sifwaan ku maray sifwaan saxirayto sax بلاك سحرير يهوج يبا معاوية در باي قراني إلهي ما نكون داري معاوية در أنت باي درجة كلا دوين يا صفوان و لب يدك سقراي لا وحنا ولا صباح أنت شيء شيء في تشير
waxaas ku soo maraa marba igu soo gala Facebook war dad isku darajaa ma nihin dad wada hadli karo waqti inaan kugu lumeeyna maxaa ma inaad igu soo xambaxdo magac igu raadsataa rabtaa adoo kale anigu lama sheekaysto magacana kuma raadiyo adeer gacal iyo dadkaasaan kusoo alaan dheerahan kusoo xambaxaani ogaadeenkaygaas iska caaysanaya ogaadeenkayo laandheeraha ilaahay ee daarood anaa iga badan dadkaygu yeey iga badan dadkaanahay soomaaliyo idil waxmaana uma qabo bukan socod ayaa tahay xanuunsanaayo balaqaadataa tahay soomaali diidiyo darxumaad dalbanasaa soomaali diidiyo darxumaad dalbanasaa aniguna waxaan ahay daraawiish ayaan ahay soomaali baan ahay soomaali dhalayo don xariira baan ahay kunikide ahamne fanaanna waan ahay wallahi isaaqo dhan baan baarkin gelinaya ilaahay baan ku dhaartay baarkin ku wada war dadkan iyo dadka u gabyaanu nahay oo heesa wallahi oo billahi oo tallahi barta aan fadhiyan hees ka qaadi karaa I don't need inaan maartay meel kale u soo maro I don't need inaan Soomaali kale iska soo dhigo landere dhalay oo ummadda Soomaaliyeed landeeraheeda baana waana ku qanacsan tahay Soomaali intaan ku qanacsanayn ee aan aaminsanayn inay daarood yihiin Soomaali ummadda ugu tunka weyn ama ugu sharafta badan waxaan leeyahay iimaanka Allah idinku sugo hawiyo waxaan leeyahay walaaladay baatiin Soomaalinimada inaga dhaxayso dad Soomaaliyeed baatiin dadnimada inaga dhaxayso dad walaalaha baynu nahay laakiin Soomaali diidka waxba inaga ma dhaxeeyaan Soomaali diid ma raacano caadi qaata weeye adeeraday baa ku jira ilma adeeraday baa ku jira laakiin isku mabda ma nihiin isku aragti ma nihiin nin walba sidaan Mareykanka ugu soo shaqo tigay ogaada dhulbahanta reer sharaf leenu yahay ogaada inuu halyeyga Soomaaliyeed yahay ogaada inay gob dhalay yihiin laakiin dul iyo gun ay maaragtay maanta dad isku moodayaan ay ku magac raadsanayaan ogaada Soomaaliya marka u kaca khaatumo si degdeg ah lagu aqoonsado Soomaaliya khaatumo waxa weeye bawda rag maalinba mid baa qaawan maanta khaatumaha la isku yimaado ha loo dhiso dawlad dhaba ha loo dhiso farmaajan la hadlaya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed khayran la hadlaya ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed dawladda ha la gacan qabto maamulka ha la gaaro cadowga hadduu u gacan galo hodhow way adag tahay dawladda aynu si fudud ku dhisi karno oo si wanaagsan ku qaban karno iyo nagu dheeraan hodhow sheekadeedu khaatumo waa Soomaali idinkuna Soomaali baati nimankani waa Soomaali diid waa yuhuud jacayl waa Itoobiya jacayl marka waxaan leeyahay dadaala waa gaara qabiil inaan galama rabin laakiin waad aragtaa ninka xanuunka uu qabiil u qabo si caayay iyo aflagaadeynay waad arkaysaa qabiilan caay meesha uma soo gelin kuwaygaan rabay inaan cagaha la dulmaro oo kuwayga jiiro oo daarood cagaha la dulmaro laakiin la dulmari maayo ka xun ee daarood waa dadkayga ka xun ee hawiye waa dadkayga ka xun ee direed waa dadkayga laakiin isaaqan halaynaga qabto isaaqaynu iska qabanno wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddaynaan qaban meel kale hodhoweynu wax kale sheegi war aqoonsiga innaga hayna hawiyow aqoonsiga innaga hayna daaroodow aqoonsiga innaga hayna Soomaaliyey aqoonsi innaga hayna dirow wallaahi oo billaahi oo tallaahi meel kale aynu ka raadin doonaa war dadkaanu ka qabanno meesha waraan iska qabanno xagla toosiyaa sheegaya meeshan faraha kala bax waad ku fashilatay inaad Soomaaliland waxa ay ahayn aad rabtay inaad ka dhigtaad ugu soo jeedisaa rabtay laakiin way fashilatay dabacasar baa fashilay dabacasar halyeyga Soomaaliya shanta Soomaaliya yaa soo fashilantay Soomaaliland fashilatay khaatumana jabka ku soo socdaan sheegaya waxay tahay Soomaaliland waxa ay doonayaan inay dhulbahanta xareeyaan gacanta ku dhigaan hubkana ka dhigaan markaana ay gumeeyaan gob jabtay inay ka dhigaan bay rabaan oo markay hubka ka dhigaan ay ku tuntaan ay say doonaan ka yeelaan marka waxaan leeyahay ilaahay ka baqa ilaahay aan ka baqno gob dhashay baanu nahay haddaanu Soomaali nahay gobgabay dhasho Soomaali baan ahay gobgabay dhasho
Somali baan ahay. No Sagland. No Somaliland. I'm saying Somali. بالله من كده international أو mail point هايستا حتى ما قبي كلا because قف مركو محافظ كش محوش إسحاق سيدنا هو إسحاق بوربورنا إسحاق كوسكوسنا إسحاق دميره راعي تيرت وحاش روايله كش كيمياء no أنا وحان هاي الصومالي صاحب مواد الأمة الصوماليات بقى نكست أو صومالي نمد أمسنا وصومالي إسكو درجنا وانه لكن أديك إسكو درجنا ما نقدر we cannot محاول same page ما استاكر إسحاق أبو كلي هذا يكون هذا بريدا محنك ساقبا وهي بانك ساقبا إسحاق أبو يبرد ده قالك كاري قبو قالك يصلح قالت ما يقص حير أنك ساقبتي نساق أبو كلي محنك هو ساقبا المصفى ما ساقبا يدمر مقع يدود من ينا قلت واحد يسوع حد كنا دار واحد هل كان ساق مركز ساقبا إيه دارو إن هذا ننتهي ولا بحنيات هاي وحنيات كل مستريني يساق مركز ساقبا والله